saxaafadda raadiyaha oo muujisay sanadihii ugu dambeeyey ee xiddig Kahor inta uusan qarxin. Cilmi-baarayaal xiddigiska ayaa markii ugu horreysay qabtay calaamado raadiye oo ka imaanaya qarax xiddigeed supernova oo naadir ah, taasoo daaha ka rogtay firfircooni xooggan oo ka dhacday xiddig weyn sanadihii ugu dambeeyey ee nolosheeda. Waxay ogaadeen in xiddigan laga yaabo inuu lahaa xiddig kale oo la socda, kaasoo sababay inuu si xad dhaaf ah u lumiyo dhufkiisa ka hor qaraxa. nooca supernova ee la bartay. Cilmi baaristu waxay diiradda saartay supernova nooca ibn oo ah marka xiddig weyn isburburiyo kadib marka uu sii daayo gaas helium ah oo aad u badan. Waxaa la ogaaday in xiddigan uu bilaabay inuu si xoog leh u sii daayo gaas sannado yar ka hor qaraxa, taasoo aan lagu arki karin indhaha caadiga ah balse lagu arkay raadiyaha. Raadiyaha oo noqday mashiin wakhti dib u noqosho ah. Iyagoo adeegsanaya teleskobika raadiyaha ee Very Large Array ee New Mexico, cilmi-baarayaashu waxay 18 bilood la socdeen calaamadaha raadiyaha. Raphael Bayrway, arday beed ah oo hogaaminayay daraasadda, wuxuu yidhi, waxaan awoodnay inaan raadiyaha ku eegno 10kii sano ee ugu dambeeyey ee nolosha xiddiga. Gaar ahaan 5tii sano ee ugu dambaysay wuxuu si daran u luminayay dhufkiisa. Gaaska baxaya oo noqday muraayad caalami ah. Marka xiddigu sii daayo gaas badan ka hor qaraxa, gaaskaas ayaa noqda sida muraayad. Marka mawjadda qaraxa ay ku dhacdo gaaskaas, waxay dhalisaa mawjado raadiye oo muujinaya waxa xiddigu samaynayay ka hor dhimashadiisa. Waxaa sidoo kale la helay caddaymo muujinaya in xiddigan uu ka tirsanaa nidaam laba xiddig ah, binary system, taasoo la rumaysan yahay inay sababtay luminta dhufka xad dhaafka ah. Furitaanka daaqad cusub oo lagu fahmayo geerida xiddiga. Raadiyaha ayaa hadda noqday qalab awood leh oo lagu ogaan karo sida xiddigaha u dhintaan, iyadoo horey cilmi-baarayaashu ugu tiirsanaayeen iftiinka muuqda. Daraasadan cusub waxay muujinaysaa in la heli karo xog muhiim ah haddii teleskoobiyada raadiyaha la isticmaalo wakhti hore. Maryam Mojes, borofesor xiddigis ah oo ku takhasustay geerida xiddigaha, waxay sheegtay qoraalka Raphael wuxuu furay daaqad cusub oo lagu baran karo supernovayada naadirka ah, wuxuuna muujiyey in teleskobiyada raadiyaha la furo ka hor inta aysan qarxin si loo qabto calaamadaha raadiyaha ee dhaqsaha u baabaa.